warka soo saaray xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ka dhacaya oo lagu heshiin waayay xilli uu dhamaaday muddo xileedka madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qoraal uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee Midowga Yurub ayaa waxaa lagu sheegay in heshiis la'aan lagu qabto doorashada dalka ka dhacaysa ay tahay arrin culays ah isla markaana marnaba wax dan ah aysan ugu jirin shacabka Soomaaliyeed. Wasiirka waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in xal laga gaaro khilaafka hareeyay qabsoomidda doorashooyinka ayna madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kuwa maamul goboleedyada yeeshaan wada hadal si xal looga gaaro hirgelinta geedi socodka doorashooyinka dalka. Heshiis la'aan in la qabto doorasho ka dhacaysa Soomaaliya waa mid aad u culus oo aanan dan ugu jirin muwaadiniinta Soomaaliyeed. Waxaa muhiim ah in dhammaan ka qaybgalayaashu ay sii wadaan in ay si wax ku ool ah ula shaqeeyaan si ay ugu heshiiyeen hirgelinta geedi socodka doorashooyinka qaran. Hogaamiyaasha siyaasaddu waa in ay sii wadaan dadaalkooda ku aadan hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar 2020 lagu gaaray Muqdisho, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Midowga Yurub Joseph. Sidoo kale Midowga Yurub ayaa madaxda dowladda uga digay in ay sameeyaan muddo kororsi sidoo kalena la joojiyo isla markaana laga fogaado wax kasta oo dib u dhac keeni kara. Ismariwaagii siyaasadeed hadda ka jira waxa uu dhaawacayaa kalsoonida Midowga Yurub ee horumarka Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo iyo hogaamiyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya waxaa looga baahan yahay inay xaliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee khatarta ku ah mustaqbalka Soomaaliya iyo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto doorashooyin, ayuu raaciyay qoraalkiisa wasiirka arrimaha dibadda ee Midowga Yurub. Beesha caalamka ayaa wada dadaal xooggan oo ay ku doonayaan in lagu xalliyo khilaafka ka taagan qabsoomidda doorasho ka dhacaysa dalka, iyagoona madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada mar kale wada hadal ugu baaqay xilli uu dhamaaday muddo xileedka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.